waad salaamantihiin kusoo dhawaada mar kale iyo video kale oo cusub. Maanta videogan waxaan idinkugu faa'iideyn doonaa ama idinkugu bari doonaa xirfadda sameynta loogada. haddii aad doonayso inaad sameysato looga adiga ku qaas ah, marka ugu horeyso waxaad u baahan tahay inaad ka fikirto loogadaada qaabka iyo design-ka iyo sida loo sameynayo. Haddaba maanta aniga si tijaabo ahaan waxaan kugu bari doonaa sida loo sameeyo loogada IM252. Runtii loogada IM252 waa la sameyn karaa, wayna sahlan tahay. Haddaba videogan ayaan kugu bari doonaa sida loo sameeyo loogada IM252. kusoo dhawow muuqaalka oo faahfaahsan. haddaba si aad u sameyso loogada IM252 waxaad u baahan tahay application-ka Pixellab. waana application u shaqeeya sida Photoshop oo kale. linkigiisa waxaa idin soo dhigi doonaa qaybta hoose ama videogan hoostiisa ama description-ka. haddaba application-ka waan soo kacsanaynaa. markaan soo kacsano qoraalkan haddeertan halkan yaalo waan tirtireynaa ama waan remove gareynaynaa. markaan qoraalkii aan remove gareyno waxaan imaanaynaa qaybtii hoose ee ku qoran tahay shapes. meesha aad taabanaysaa, kadib shapes ayaad sii taabanaysaa. waxaan ka soo gashanaynaa shapes. markaan taabano halkan waxaa ku jiro shapes aad u badan. haddeertaan waxaan dooranaynaa anaga midkan. kadib markaan doorano colorka waan ka bedeli karnaa haddii aan u baahano. kadib colorka aan tagaynaa gaduud ayaan ka dhigaynaa. markaan colorka gaduud aan ka dhigno saad u jeedo colorkii gaduud ayuu noqday. haddaba waxaan u baahanahay inaan shapeskan aan copy ku sameyno si aan laba xabo ugu dhigano. si aan copy ugu sameyno ama yacni laba xabo aan ka dhigno waxaan u baahanahay in copy aan dhahno. copy ayaad taabanaysaa. markaad copy taabato saad u jeedo laba xabo ayuu isku bedelay shapeskii. haddaba qaybtan ayaad imaanaysaa si aan colorka ugu bedelno. kadib cadaan ayaan ka dhigaynaa. cadaan markaad ka dhigto cadaankan ayaad dhexda kula sameysaa shapeska gaduudka. yacni shapeskan cadaanka waxaad yacni dhexda ugu sameysaa shapeska gaduudka. saad u jeedo dhexda ayaan ku sameynaa. haddaba saad u jeedo dhexda ayaan ku sameynaa. looma baahno in qalqalo ama gees uu ka galo. saad u jeedo dhexda ayaan ku sameynaa. markaan ku sameyno shapes ayaad sii taabanaysaa. shapes markaad taabato yacni shapekaan soo gashanaynaa. markaan soo gashano yacni saana yeelaysaa oo dhirdhira ka dhigaysaa. kadib qaybtan ayaan saas ugu sameysaa. saad u jeedo qaybtan hadhow maxaa la rabaa inay isla baxdo. sidaas ayuu ugu sameysaa. markaad ugu simto qaybtaas aad imaanaysaa. kadib halkan ayaad taabanaysaa oo yacni meeshaan aad u jeedo. markaad taabato halkan saddexdooda tigta ayaa saaraysaa. kadib meeshaas dhaxay ayaa taabanaysaa. okay aad leedahay. taasi macnaheedu waxay tahay in yacni sawirkii ama wixii hal mar uu isla socdo oo yacni uusan kala dhaqaaqin ee isla socdaan. haddaba markaad saas sameyso yacni qaybtan areas ee ku qoran tahay ayaad taabanaysaa oo yacni background-ka in laga bixiyo. kadib markaad okay dhahdo oo aad on dhahdo saad u jeedo halkaas waxaa ka baxay cadaankii. yacni cadaankii dhexda ku jiray ayaa ka baxay. saad u jeedo baalkii kaliya ayaa kusoo haray. kadib copy ayaad leedahay oo mar labaad oo yacni inaan soo gashanaa rabnaa. copy markaad dhahdo laba xaba ayuu noqday. laba xab markuu noqday haddaba colorka ayaan ka bedelaynaa. colorka madow ayaan ka dhigaynaa. markaan madow ka dhigno saad u jeedo mid guduud iyo mid madow ayaan haysanaa. haddeertaan waan isku aadinaynaa oo waan isku sameynaa. markaan yareeno oo aan labadooda isku garab istaajino waan isla sameynaa. haddeertaan saad u jeedo waan isku sameynaa. inay isla akaadaan ayaa la rabaa waxa midkaana sooynaa. haddaba saad u jeedo way isla egyihiin. haddaba waxaan u baahanahay transparent inaan ka dhigno ama PNG. sidaad ugu dhigto qaybta hoose aad imaanaysaa. transparent ayaad kasii dooranaysaa. kadib save ayaad leedahay. haddeertaan loogadii waad save garaysatay. gallery-ga ayuu kugu jiraa. waxaanay dhan hadda uma baahni oo waan tirtireynaa. kadib qaybta balaska taabanaysaa from gallery aad leedahay. yacni midka haddeertaan aan soo save garaynay ayaan soo gashanaynaa.
kadib saddexdaas aad kore aad taabanaysaa images aad leedahay kadib Pixalab logadii ayaan halkan ka soo gashanaa ujeedo logadii ayaan soo gashanaa markaad soo gashato logadii halkan ay inoo taalaa hadda waxaan u baahanahay in text aan qorno ama magacii IM252 aan qorno kadib qoraalka halkan uu yaala ujeedo kadib halkan waxaan ku qoraynaa IM252 ama magaca logada ujeedo okay aad leedahay markaan ku qorno qoraalkii halkan ayuu yaalaa logada gees ayaan dhigaynaa qoraalka soo weyneynaa markaan qoraalka soo weyneyno ujeedo waan isku sameynaa markaan isku simno oo aan isku habeeyno ujeedo textiga colorka ayaan ku dareynaa colorka meeshas geeska aad imaanaysaa kadib meeshan calaamadahan waxaan dhan waa waxa aan soo diyaarsaday hadda doonto waa diyaarsan kartaa oo meeshan oo isku aadin kartaa guduud iyo madowga kadib markaad isku aadiso hadeertan ujeedo logada inay noqotay logada IM252 hadaba ujeedo waa isku sameeyna isku aadinaa qalqalo dhan aysan ka galin hadaba ujeedo logada IM252 oo saxda ah ayaa loo maleynayaa inkastoo ay copy tahay laakiin waa logada IM252 ee saxda ah haddii aad doonayso inaad logo samaysato waa samaysan kartaa kadib kaliya waxaa loo baahan yahay inaad fikirto qaabka logadaada aad ka fikirto hadaba halkaas ayaad taabanaysaa kadib save to image ayaa leedahay waa save gareynaynaa markaan save gareyno halkaas ay aan ku save gareynay ujeedo logadii waan save gareynay marka sidaas ay ku sameyn kartaa logada waatana hadeertaan ujeedaan marka way fududahay logo in la sameeyo kaliya waxay u baahan tahay maskax iyo inaad ka fikirto logadaada waad ku maasantahay daawashada videogan aad ku bixisay waa Nuurdiin oo kule waxa idin balan leh muuqaalka xiga mahadsanid